السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلانتي wanaagsan asxaabay meel kasto aad joogtaan ku soo dhawaada Israa'iil ayay dunida ku dacweynaysaa talow masaarida hagee laga galay maxay ka rabaan tafaasiil ku saabsan sheekadaas barnaamijkan idinku soo gudbin doona. Israa'iil oo xuna qabatayntii Gaza si xoojisay iyadoo la sheegay gawaari fara badan oo gali lahaa Gaza inay ku hayso oo ay u diiday inay gudaha galaan waxaana la sheegay cunada qaarkeed inay markaa dhibaato ka soo gaarayso qorox xoog leh oo ka jirta xuduudda Masar iyo Gaza. haddaba xaaladda gargaarka iyo hawshiisu meesha ay marayso iyo wararkii ugu dambeeyay Gaza iyo khasaaraha maanta loo geystay dadka reer Gaza barnaamijkan ku faahfaahin doonaa. qaybaha dambena waxaan idinku hayaa kuwa aan u bixiyay xerow diimeedka Yahuuda oo macnaha wadaad diimeedana ahayn ayaa maanta waxay xirteen iyaguna Talaabiib wadooyin dhowr ah maxay diidan yihiin in askar laga dhigo oo ay Gaza ka dagaalamaan. waxay leeyihiin Gaza allahinka allah meesha ma u socday taagay. haddaba wararkaas aynu barnaamijkeena caawa ku faahfaahinayna in Netanyahu uu xujo kala keenay wada hadallada ma yeelayno ilaa hal mar maxaabiistana la siinayo. marka xujadaasu la yimid waa tii isagana loo hanjabay qoysaska dadkooda lagu haysto Gaza waa tay hanjabaad u direen. barnaamijkii galabkan aad uga sheekeeyay halkaasaad maartay kala socoteen. marka maxaa soo kordhay hadda wasaaradda arrimaha dibadda Israa'iil war soo saar waxa leeyahay warkan wuxuu tarjumaan ahaan loo tarjumanayaa Israa'iil inaysan shaqo ku lahayn wada hadalladan macnaha siday rabto inaysan ahayn. wasaaradda arrimaha dibadda warbixinta soo saarto adduunyada loo gudbinayaa. adduunka marka anagu saasaan aaminsanahay waaye arintii wada hadalladii socotay fakarkaasaan ka qabnaa. haddaba markaan idintu soo wararkii ugu horreeyay sheekada ka soo baxa wasaaradda arrimaha dibadda Israa'iil ayaa war soo saartay caawa waxay sheegtay maxaabiista inaysan soo noqon doonin ilaa inta laga burburinayo Xamaas. muujida maxay leeyihiin maxaabiis soo laabanaysa ma jirto ilaa inta Xamaas cagta laga marinayo la baabi'inayo. maxaabiis marka haddaysan soo noqonin dadka marka maxaabiistu ay ka maqan tahay way qaylinayaan waa kaas ay ku hayaan. marka nimankan waxaa leeyahay Smotrich iyo Ben Gvir iyo inta ay joogaan Netanyahu maba nuuxsan karo. wada hadalladaas u dhawaa u yiraahdeen hadda qaab uga fakadu raadina marmarsiyo hal mar koto kaalaysi inaan la siinayn waa ogyahay. koto ka hal mar laga haysta laysi hadii lagu siimo dagaalka sii wada yaa ka aqli badata qofa ka aqli badata maleelay. marka waxa leeyahay ninkan xujo ka dhigana si uu u qanciyo Ben Gvir iyo Smotrich. marka imtixaan nimankaas asaguna imtixaan ku ah. Israa'iil markay cadaysatay inaanay nabad u soo socon ayaa masaaridii aflabadii qayliyeen caaw. wasiirkii arrimaha dibadda ninkii Masriga ahaa ayaa telefoon inta qaatay dawladihii uu islahaa Israa'iil way la hadli karaan ayuu wuxuu Israa'iil qabta oo Israa'iil nabad ma rabto oo Israa'iil cadaadis hal saaro nabadii aan ka soo shaqeyn oo Xamaas ogolaatay Israa'iil waa diidanta. kan marka waxa leeyahay iswareerina Israa'iil ha ogolaato maxaa la ogolaanaa Israa'iil warkeedu waa cad yahay. haddaba markaan idintu soo wararkii ugu dambeeyay sheekadaas Al-Qaahira ama masaaridu waxay ku baaqayaan in cadaadis la saaro Israa'iil si ay u ogolaato xabad joojin. wasiirka arrimaha dibadda ee Masar Badr Abdulcaati ayaa sheegay in kubaddu hadda ay taalo garoonka Israa'iil waxaana waajib ah in cadaadis lagu saaro Israa'iil si ay u ogolaan lahayd hindisahan oo uu sheegay inuu wax badan ka tari doono yaraynta dhibaatada ka jirta magaalada Gaza. arinta bini'aadanimo ee Gaza ka jirta ayuu hindisahan yarayn doonaa gargaara geli doona Israa'iil maxaabiista loo soo deyn doono waxa ogolaato ule war waa la hadla Israa'iil ma waxaas ma qorta Israa'iil waxay qoraan ma waxa la yaab la caawa aan akhrinahay sheeko ku saabsan Netanyahu wuxuu warbixin u dirayaa wuxuu leeyahay ninka la yiraahdo Macron madaxweynaha Faransiiska waxa wado waxay dhiiri gelinayaan Xamaas iyo nacaybka
macnaha isir nacaybka ayay dhiirigelinayaan maxaa waaye wuxuu wado falastiin aqoonsigeeda September iyo waxa kan ay sheekadaas ay keenaysaa markuu hadalkaa sheegay isla markii wasaaradda arrimaha dibadda Faransiiska ayaa war soo saartay waa qosol waxay yiraahdeen annaga darsi uma baahnin in naloo sheego isir nacayb iyo midab takoor iyo waxa kan in naloo sheego ma u baahnin marka Netanyahu waxa sheegay annaga go'aanka gaareen Faransiiska yiraahdaa annaga gaareen marka sheeko runtii waxay ahayd waa la isku turtuuriyay adduunka u jeedaan waaya qodobka isaguna halkaas ay ka gudbayna qodobka kale ee barnaamijka soo kordhay isaguna wuxuu yahay saakay ilaa caawa 51 qof ay tirada dadka dhintay reer Gaza marayaan qaarkood iyagoo cunto doonta la dilay qaar oo madaafiica ku dhacday qaar gaajo u dhinteen waa kaas inkaas dhibaatadaas haysata aadituso marka war caawa soo baxo la leeyahay hay'adaha caafimaadka waxay sheegeen 51 qof inay shahiideen kuwaas oo la sheegay xabadaha ciidanka Israa'iil inay markaa ku shahiideen oo markaa ka dhacay Gaza maanta haddaba cisbitaalada waxay sheegeen 51 qof inay shahiideen iyagoo ku dhintay meelo kala duwan oo ka tirsan marinka Gaza laga soo bilaabo ilaa saakay subaxii laga soo bilaabo mushkiladaas marka waa qayb duqayma socda dadkii way iska dilayaan dadka oo dhibaato iska haysata ilaahay dhibaatada dadka ka saar midda kale gargaarkii maalmahan galgalayay ayaa isaguna nag way diiday Israa'iil inay galaan shalay maanta waxa leeyahay buuq fara badan taagan isniinta iyo talaadada iyo wax saas oo gudbay ma jiraan baabuurtii la soo saaray inay galaan loogu talagalay qorax kulula jirta hadda waa xilliga qoraxdu kulushahay Gaza iyo dhulkaan oo dhan oo kuleel badan jira baabuurtii deeba waxa leeyahay qaar waxay wadeenba cunno loogu talagalay caruurta iyo caana iyo waa halaabaana dheen wax naga gala mal Israa'iil maxaa naga galay dhehana aayatusu marka dhibaatada ka taagan iyaduna halkaas Al Jazeera waxay leedahay Israa'iil waxay xayirtay baabuurtii gargaarka u waday Gaza marka baabuurta ay diidayso marka inay galaan way saf dheer iska noqdeen baabuurtu ma gali kartaan alle dhowr baabuur soo gudbal dhaha waa la dimbaara waa la daalina maanta dhan halka ka wareegso ninkii maqan kaasa maqan axbaar wuxuu yiri nina la wareysanaay wuxuu nafta laga dhacday maalinka oo dhan wax la sii deynaa male waxaan diidanahay ma gudbi karaan ma ku dhahayaan shaqadii socota lagu leeyahay shaqadii lagu daahinayo hal baabuur la deynaa 6 saacadood aan haysanaa maalinka maxaa ka haru yiri marka 3 baabuur hadii la daayo maalinka waa khalaas marka mushkiladaas iyaguna ka cabanayaan qadar xayisiisa kadib waxaan galaynaa qaybaha dambe ee barnaamijka waxaanu ku soo barnaamijka hadaba qaybtan waxaanu ku soo qaadanaynaa dhibakii wadaad xarooyadii ayaa waxa la yiri askar qasab ah idinka qoraan mar walba waa la soo weeraraa markii askartu waa yartaa la yiraahdo ayaga la soo aaday ayaguna mudaharaadaya waxay leeyihiin maayo annaga dagaal kuma jirno annaga dagaal kuma jirno yiraahdeen annaga waxaan ilaalinaa diinta tawreedka oo yahuudda ay haysataan ilaalinaa dad diinta u go'ayaan nahay kuleeyeen dhar badbadow inta soo qaataan iyo koofiyado maayo kuma jirno wadooyinka dhan ay xirteen maxaa diidaysaan Gaza in la geeyay Gaza maxaa ku artay maayo kuwii naga horeeyay wax waashay wax laga jaray noqday anagu hawshaas bagili karnaa hadda koora barnaamij waxa ka sameeyay iyagoo leh annaga dad nabadeedana yahuudda meelaha kala ka timaad dagaalka la geliyay annaga yahuudi asalka eedana dagaalka waxaan annaga shaqo qabanayna kuwaas dumarkii ay ka dhintaan iyo kuwaas meel loo haynay marka kuwaas meelaynayna nimanka tacaaro ayagii markii dawladda qortiisa ugu jiraan haddaba marka ay tusoo wararkii ugu dambeeyay sheekadaas boqolaal ka tirsan xarow diimeedyada yahuudda ayaa waxay ku mudaharaadayaan meel ku dhow Tel Aviv iyagoo markaasi diidan in askar qasaba laga dhigo waa kaas marka nimanka iyaguna ilaa caawa mudaharaadkaasi wadaan waa arki doonaa wixii warar soo kordha waxa